wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa ku sugan magaalada Muscat ee dalka Cumaan halkaa oo la filayo inuu maanta ka furmo wadahadalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Maxaa laga filayaa wadahadalkan marka la tixraaco shuruudaha iyo qaabka ay wadahadalladan ku furmeen aragtida shakhsiga ah? Waa wadahadal aysan ku jirin natiijo ka badan labada dhinac inay waqti iibsadaan. Iran waxay isku dayaysaa inay waqti kasbato, sidoo kalena Mareykanka wuxuu doonayaa inuu helo waqti xitaa haddii uu yar yahay. Maxaan u leenahay sida shalay Trump waxa uu jeediyay hadal mudan in si qoto dheer loo fiiriyo, isaga oo sheegay in Iiraaniyiintu ay doonayaan wadaxaajood sabab la xiriirta cabsi ay ka qabaan weeraro militari oo Mareykanka ku qaado maadaama ay jiraan maraakiib dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sii jeeda gobolka. Maxay tani ka dhigan tahay? Maraakiibta dagaalka Mareykanka waxa ay gaari doonaan Bariga Dhexe 10 maalmood gudahood, taas oo micnaheedu yahay in Mareykanka uusan weeraro militari ku qaadi doonin Iran muddadaas ilaa ay dhammaystiraan diyaargarowgooda ciidan. Dhanka kale, Iran waxa ay ku doonaysaa inay wadaxaajoodkeeda ku koobaan kaliya faylka nuclear-ka oo loola jeedo arrimaha kale inaan laga hadli karin. Haddii aynu isku dayno inaan meesha ka saarno Mareykanka inuusan doonayn dagaal toos ah oo Iran la galo, iyo xitaa dhinaca Iran haddii ay bixin karto tanaasul kasta si dagaalka looga hortago, weli waxaa jirta khatar xaalad kasta oo suurtagalnimo dagaal. Saameyn intee la ka dhalanayso Iran haddii la boqoy waxay ku jawaabi doontaa ayadana gantaalo iyo madaafiic ay ku tuurto saldhigyada laga soo weeraray. Laakiin ciidan lugta haddii la galo waxa uu qorshaysan inay xiraan meel gacanka Hormuz inay xiraan ama Hormuz Strait inay xiraan. Hormuz waa gacan ama il muhiim u ah dhaqaalaha dunida. Waxaa maalinkii mar 20 milyan oo fuusto oo shidaal oo u dhiganta wax soo saarka shidaalka caalamka 20%. Haddii arrinkaas ay dhacdo oo ay xiraan Hormuz, waxaa qaaliyobi doona shidaalka caalamka. Shidaalka caalamka dib u qaaliyoobana waxaa hoos u dhici doona wax soo saarka dunida. wax soo saarka dunida haddii hoos u dhaco waxaa ku xigta qiimaha ama sicirka wax la gado oo qaaliyoobo. Adan dhaqaalaha ama kobaca dhaqaale ee dunida dhan sanadkaas hoos u dhici doona haddii dagaalku uu waqti badan sii socdo. Sidoo kale waxay khasaare gaar ah ku tahay China. Shalay erayo ka mid ah hadalla uu jeediyay Netanyahu ayaa si gaar ah ii soo jiitay. Netanyahu waxa uu si cad u sheegay in Israa'iil aysan ku qasbaneyn heshiis kasta oo Mareykanka kula saxiixdo Iran magaalada Muscat, isla markaana aysan aqbali doonin heshiiskaas xadidaya gacmaheeda militari.